Soomaaliya amahan dadkaygo runta dhabada laga diro anka agarane ciidena hodanka mawsara kanayo beeraha masaracna amahan dadkaygo runta dhabada laga diro anka agarane ciidena hodanka mawsara kanayo beeraha masaracna يا بيرها مسرعنا عقلي غو شقيو عقدين والله عقلي غو شقيو عقدين والله عيد لقاقا بحيا بيرها مسرعنا إركو مركو عرتيدو عن الكشبو انت بيها علسان عرف يدك بدها قلا بيرها مسرعنا إركو مركو عرتيدو عن الكشبو انت بيها علسان عرف يدك بدها قلا بيرها مسرعنا وحكستون عريننا عديو عن مويه عركا لانكا كيناي بيرها مسرعنا وحكستون عريننا عديو عن مويه عركا لانكا كيناي بيرها مسرعنا وحكستون عريننا عديو عن مويه عركا لانكا كيناي kicintinay dhinaca deegaanka Milasho oo ay wadaag yihiin inkastoo ay labada deegaan ku kala duwan yihiin dhinaca wax soo saarka beeraha marka laga reebo dhinaca qudaarta misana deegaanka Milasho waxa ku badan dhirweynta ay kamidka yihiin saytuunka liinta waxana labadaasi deegaan iskaga mid yihiin durdurka biyaha aan kala go'aa lahayn dhinaca buuraha iyo dooxooyinka dhulka ay wax ka beertaan Yaasiin Cali Axmed waa mid kamid ah beeralayda deegaanka Milasho waxana uu iga warbixiyay taariikhda deegaankaasi iyo dhinacyada wax soo saarka beeralayda Milasho iyo waliba sidoo kale meelaha ay u iibgeeyaan marka ay soo go'do beerahaasi togan Milasho markaan ka warramo taariikhdiisa hore ee nololeed waxa weeye tog soo jireena oo hal qarni in ku dhow ay dadku ku noolaayeen laga soo bilaabo markii uu deganaa haleegii geesiga ahay Sayid Maxamed Cabdulle Xasan intii ka dambeysay ilaa 12 waqtigaas ay ahayd markii hore isaga ayaa meeshan deganaan jiray oo qalcad ay uga dhisnaayeen qalciisna waad arki kartaan oo waxa weeye taariikh lama ilaawana kuwa salka uga dhisnaa kuwa buura uga dhisnaa wuxuu ahaa nin fikir badan togna waa tog biya oo durdura markiisa hore aan biyihiisu goyn saacad walba 24 saacadoodba waqtiyada roobka laakiin xogaa waxa yeelaya dadka soo gaadho oo biyaha ayaa ku badan oo waa tog cidhiidha marka aan dib u noqdo taariikhdiisa waqtiyadaas ayaa beeraha la aasaasay oo odayaashii saddex awoowe ay hadda marayaan awoowayaashii hore ayaa aasaasay dhul kayma ay ahaayeen waxa ku noolaan jiray xoolaha nool sida looda adhiga iyo geela ka bacdina fikir ayaa la sameeyay waxa la arkay biyahan togan dhex maraya inay yihiin biyo hodana oo laga faa'iideysan karo sidaas ayaa loo aasaasay waayeelkii hore hadhuud iyo galley
ayay beeri jireen waxa laga keenay meesha la yiraahdo adari awr dibida wax lagu qodo iyo saabaankeeda doon baa la soo saaray meed baa laga soo dejay kabacdina waa la soo lugeysay halkan ayaa la keenay ilbaxnimada halkaas ka soo asaasantay hadhuurku waxa markii hore wax yar kabacdina beeri baa la kala qaatay maalinba beer baa la beeray waqtigaas oo maxmiyadii ingiriisku ay haysatay inta badan beeruhu ingiriisku wuxuu ku lahaa halkan beer iyo qalcad oo ka xukuma dalka kabacdi beera inta badan 15 casho biyo isaga lahaa 15 cashana beera inta kale ayaa lahayd si kastaba aatee deegaanka midhasho iyo xamaas waa deegaano bilicsan isla markaasina marka aad tagto deegaanadaasi ku soo jiidanaya waxaana loo odhan karaa waa deegaano ku habboon dhinaca dalxiiska cabdiraxmaan axmed ilsar star TV magaalada Ceergaabo.